maxaa la rabaa marka qofka hogaamiyaha aan ku qiimeynayna maanta maadaama aan qiimeynay dawladda hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh reerkii deganaa haddii aad rarayso waxaa lagaa rabaa meel ka fiican inaad u rarto maxaana ku raraysaa wada ogol iyo talo guddoonkeeda la wada leeyahay laakiin haddaa dhahdo reerka keligeeyaa garanaya meesha aan u raraayo iyo meesha naqaha u fiican iyo meesha aan dejinayo keligee keliya fahamsan haddaa dhahdo aniga inii soo arkay maa uriikum ilaa maa ara haddaa dhahdo dadku ma ogola because waxaa riski gelinaysaa ama halis gelinaysaa reerkii deganaa xasiloonidii yareed ee lagu deganaa si marka aad shacabka muraayadda hoggaanka ay ka daawanayaan si ay kalsooni u siiyaan waa laba arrinaa laga rabaa hoggaan kasta oo dal Soomaaliya oo fragile ah oo iska nugul dowladdiisa laba arrinaa laga rabaa kalsoonida dadka dhexdooda intee la ego dhistay dadkuna intee ku qancisay inay dowladda aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan maxaa laga rabaa marka aad hogaamiye tahay koow wixii dumiye dowladnimada inaad ka fogaato maxaa koow ka ah ku tagrifalka awoodda iyo hantida qaranka inaad ka fogaato labo exda iyo qaraabakiilka ama qoyskiilka inaad ka fogaato saddex musuqa iyo tayaxumo xulashada tayaxumo oo aad dadka ku xulanayso howlwadeenka dowladda ah ood ku xulanayso inay kuu gulwadeeyaan ama ay kuu sacbiyaan oo ay ku yidhaahdaan nin wax kasta yaqaana oo doctor ah oo aqoon-yahana oo wax kasta adiga ah inay ku dhahaan taas ma dhicin marka taas ma dhicin reerkii deganaa oon rabnay in meel ka fiican loo raro halisoo ku jiraa waxaan rabnaa marka inaan fiirino maxaa dowladdan markaan qiimeynayno aan ka eegaynaa dowladdan soo madaxweynaha ku kambeyn gareeyaba waa dowlad qabyo wax kasta qabyo uga tagtaa dagaalkii shabaabka maxay uga tagtay qabyo madaxweynaha wuxuu nagu wareeriyey systemka dalkan bedelaya waxaan ka dhigayaa system madaxweynenimo ama nidaam ri'aasi xaggoo uga tegey qabyo isaga unbaa iska dhaafay wuxuu yidhi Ethiopia nagu soo duushay waa iska dhicinaynaa waa la dirinaynaa cadow hadduu shabaab ahaa jira cadow kale waxaa jiro la yiraahdo Ethiopia xaggoo uga tegey qabyo asoo abay la dhaansi garaynayo unbaa aragnay wuxuu yidhi Jubbaland yaan Axmedoobe waaran u jaray ha la soo qabto 1500 askari oo diray waa soo dhamaaday askartii waa soo ordeen wuxuu uga tegay iyadiina qabyo marka sidiisaba odayga waa oday iska qabyaba waxbaha ka walwalinina doorashadan la sheegay ee markii magacayga lagu rido kiisa xaq ka soo saaraysa ayadana qabyo uga tagi doonaa